بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله waxaan guda gelaynaa darsigii calculasta kii hore waxaan kusoo qaadanay cinwaankaanan kaga hadlaynay derivative-ka tacriifaadkiisa iyo waxyaabuhu yahay darsigan kalena marka isagii inbuu sii daba socdaa marka waxaan rabaa inaan ku tuso formulahan ama qaabkan graafkan uu samaysan yahay oo laga soo saaray formulahan oo ahaa slope-ka tangent line-ka inuu la mid yahay limit x ay u socoto dhanka a ffx laga jiray ffa loo qeybiyo x minus a qaabkan qaab kaloo badiil ah oo lagu bedelay isaga oo ka fudud oo shaqadan hadda tan lagu bedelayo lagu qabanayo ka yar ayaan rabaa haddana inaan idin tusiyo insha allah okay graafkana laysiiyey kan oo la yiri waa badiilka kii hore sidii form ahaan marka la fiiriyo isku sidii uu samaysan yahay waana sheegna waxaan niri haddaad laba nuqdo haysato nuqtadan oo q ah iyo tan p ah q-dan haddaa haysato qiimaheeda labada point ay ka kooban tahay oo x iyo y haddaa haysato tanna aad haysato p-dan x iyo y-deeda haddaa haysato slopekii markaasaa soo saaraysid si kanu noqonaya wuuna fudud yahay sida loo soo saaro laakiin anaga kan ka hadlayno waxaa waaye waa pointkan keliya haddaad haysato oodan kan ogeyn wuxuu yahay uu majhuul u yahay see kusoo saaraysaa marka formkii hore waa la fududeeyey waxaa la yiri sidan ha loo qoro meeshii x waxaa lagu bedelay a plus h waxaa la yiri marka f x plus h tan x plus h tan hadda meesha aad ku aragto yacni adan markii horeba waxay la mid ahayd x ay la mid ahayd saan mar walba arkaynay marka meel walba waxaad ku qoraysaa x plus h x meeshan h tan keliya maxaa meeshan keenay h tan keliya waxaa meesha keenay laana adan hadda haddii la yidhaahdo a plus h aan x ugu bedel ilaa waa ognahay waxaan ognahay inta inay la mid ahayd meeshan waxay la mid ahayd markii hore soo maaha x minus a soo maha haye markaan ku bedelo x tan markaan ku bedelo a plus h maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa a plus h minus a soo maha saasay noqonaysaa labadan maadaama kana plus u yahay kana minus way isla baxayn meesha maxaa soo haraya h keliya h taana marka waxaa la yiri marka waxay la mid tahay meeshan dherarkan h keliya la mid tahay okay maxaa la yiri marka meeshii la dhahayay fiiri hadda formka markaad fiiriso meeshii lalahaa markii hore x waxay u dhawaanaysaa hadda waxaa la yiri h waxay u dhawaanaysaa zero because maxaa yeelay mar walba markaan meeshan ku bedelayno kuwii hore waxaa xasuusataa mar walba markaan qiimihii x ay u dhawaanaysa inta ku bedelno zero waa noo soo baxaysay maadaama ay zero soo baxaysay h mar walba zero ay u dhawaanaysaa waaye maadaama inta zero ay ahayd yani hadda mathalan waxaa laysiiyey inta two ay ahayd intana two minus two iyo two haddii la kala jaro maxaa soo harayo zero waa soo harayo soo mahayn markii hore formulihii hore oo ahaa yani mathalan x minus a ahayd a marka waxaa la yiri mathalan two marka waxaan leeyahay two minus two maxay noqonaysaa waa zero marka meeshii zero intii la qori lahaa hadda waxaa la yiri marka intii la dhihi lahaa h waxay u dhawaanayso hala raadiyo waxaa la yiri maadaama hoostan zero ay soo baxaysay waxayna u dhawaanaysaa zero formulahana marka aan misaaladan soo socdo dhan ku shaqeynayna ilaahay hadduu yiraahdo waana sheegnay h tay kusoo baxday meel walbana a plus h noocan waa markii aljabra ahaan laga shaqeynayo iyadoo kale waa lasoo maro waad soo marto waa soo aragtay dad aljabra dhigatay noocan waa markii la dhigayo difference quotient markii la dhigayo oo aad ka shaqeynayso sida loo soo saaro formulahan sidaanoo kale la adeegsadaa soo ma markii laga reebo limitkan kanaa la adeegsadaa soo ma marka sidoo kaleeto waay kan kii oo inta lasoo qaatay la yiri aan u adeegsano si aan usoo saarno tangent line-ka saan usoo saarno slopekiisa saan usoo saarno okay marka labadooda say noqonayaan hadda mid walba formulihiisa suu noqonayo marka labada point haysato waa ka labada point marka haysato oo secant line-ka iyo markuu tangent line-ka yahay labadooda formula say u qormayaan secant-ka wuxuu u qormayaa mailkiisa markaa raadinaysa ama slopekiisa waa secant wuxuu la mid yahay waan sheegnay waxaan niri asaga ma wata limit laana labada point waa taqaanaa plus a plus h minus ffa loo qaybiyey
aada iyo x-ka waa isku mid haddaa x tiraahdo iyo haddaa a tiraahdo labadaba waa isku mid loo qaybiyey h. kan waa markaad labada point taqaano oo si kan line-ka aad raadinaysid. ama laakiin markaad slope-ka tangent line-ka aad raadinaysid oo hal nuqtana aad taqaanin nuqtada kalena ay majhuul tahay maxaa samaynaysaa? see lagu soo saara formula ama qaanuunka la adeegsada wuxuu yahay waa m tangent waxay la mid tahay limit h waxay u dhowaanaysaa 0 f a plus h. meel walba oo x waxaan ku bedelnaa anaga a plus h ama x plus h waa isku mid labadaba. iyaynan kula noqonin wax cusub oo qariiba. a loo qaybiyey h. okay bal example-kan aan soo fiirino. example-kan waxaa la ii diray waxaa keentaa la yidhi equationkii soo saar mucadaladii waxaa la iga rabaa tangent line-ka. tangent line-ka waan sheegnay tangent line markaa soo saaraysid waxaan nidhi kowda hore waa inaad hesho slope-ki waa inaad soo saarto. slope-ka adoonan helin mucadalada tangent line-ka ma soo saari karin. okay kowda hore saan slope-ka kasoo saaraya ani marka waxaa la i siiyey meeshan waxaa iigu qoran f of x inay la mid tahay 1 over x x-na ay nuqtada ay ka kulmayaan f of x tana ay tahay 2. eedayda marka maxaa waaye waa 2. marka tana waxaa laga rabaa aniga inaan soo saaro slope-ki soo saaro kadibna mucadaladii soo saaro ama equation-ki soo saaro. okay waxaan leeyahay formulihii soo qaado waxaan leeyahay m tangent waxay la mid tahay limit h waxay u socotaa 0 f f a plus h minus f f a loo qaybiyey h. kanaan ku shaqaynaya ani marka mar walba labadan ha isku qaldan markii lagu yiraahdo f f x iyo markii lagu yiraahdo a labay kala yihiin iska ilaali. okay marka maxaan leeyahay marka waxay la mid tahay limit h waxay u socotaa 0 f f x teeda maxay la mid tahay meeshan يعني tan f f x waayo soo maha f f x waxay la mid tahay 1 over x meeshii x laakiin maxaan ku bedelayaa oo booskooda ku jirto a plus h. meeshii x maxaan ku bedelayaa a plus h laakiin waxaan leeyahay sidaan formulahan ay u qorantaan u qoraya waxaan leeyahay 1 over a plus h minus tanna ffna say u qormaysaa ffna waxay u qormaysaa 1 over x tan waa liisii qiimaheedu waa 2 yan ku bedelaya anigu waan sheegay laba nuqto waayaan iri graafka mar walba fiiri graafkan markaad fiiriso sideedaba mar walba adiga waxaad ogaataa mar walba labadan nuqto waad haysataa andhaha nuqtadan waad haysataa ana waa haysataa yna waa haysataa meeshaan ay ka kulmayaan slope-ka markaad soo saaraysid adiga mar walba tangent line slope-keeda markaad soo saaraysid nuqtadan waad haysataa x-tana waad haysataa y-diina waa haysataa laakiin tan ma haysid. tan ani ma hayo walaa x-tana ma hayo walaa y-diina ma hayo. x waxaan u qaadanaa inay tahay a plus h y-diina waxaan u qaadanaa inay tahay f f a plus h laakiin markii equation sidaanoo kale lagu siiyo oo tanoo kale lagu siiyey markaas waxaa lagu yiri soo saar say aniga ugu bedelanaya marka meeshaas waxaa ugu bedelanaysaa waxaa ogaataa mar walba horta waxaan sheegnay oo jirto inay mar walba x ay la mid tahay a marka mar walba waxaa ogaataa wixii inta ku qoran oo lagu yiraahdo x waxaa lagu yiraahdo fiiri f f x waxay la mid tahay 1 over x at nuqtada markii pointiga x la marayo meeshan a markii la marayo waxaa waaye waa 2 marka meeshan waa haysataa waa 2 tan saa kusoo saaraysaa tan waxaa kusoo saaraysaa y-dan waxaa kusoo saaraysaa meeshii numberkii lagu siiyo x waxaad ku bedelaysaa formula ama equationkii lagu siiyo waxaad leedahay 1 over x meesheeda waxaad ku bedelaysaa 2dii waxaad leedahay marka 1 over 2 hadda marka pointigan maxaa waaye meeshan pointigan waxaa waaye x-na waa 2 y-na waa 1/2 wakaas pointigaas waa haysataa marka qaacidadana markaad fiiriso waxaa waaye soo maha waa tan kore
oo laga jaray tan loo qaybiyey tan tan oo laga jaray tan soo ma marka laakiin xan tan meeshan waxaan ku bedelnay a plus h tanna waxa sideedan u qoran markaas waxaan niri markii la dhiraandhiriyey waxaa soo hartay ama la kala jaray h keliya marka hooseeyey h waay haddaba tan adigu umaba baahnidba sheekadeeda laakiin tan kore way waxaad u baahan tahay tan kore marka waxaan niri ffadayda sidaana kusoo saaro waa one half laakiin tan ma garanayo nuqdadan waa nuqdada aan la garanayn walaa axtina lama yaqaano walaa lama yaqaano waayo tan marka mar walba oo equation lagu siiyo oo lagu yiraahdo ffx waxay la mid tahay lagu dhaho wixii sida hadda meeshan ku qoran oo kale intaan waa nuqdadii kore waa meeshan pointigan markaad ka shaqaynaysa adiga pointigan labadaba waad uga shaqaysanaysaa markaad inta rabto inaad kusoo saarato waxaad ku bedelanaysaa two pointiga soo saaranaysa markaad rabtid laakiin meeshan tagtid meel walba oo x waxaad ku bedelaysaa a plus h tan kore meel walba oo bahalkiya maxaan ku bedelayaa a plus h hadda x tan waxaan ku bedelaya waxaan leeyahay one over a plus h saasaa marka uga shaqaynaysaa ood u wadaysaa ayada waxay noqonaysaa one over a loo qaybiyey h ku bedbedel markaad waxaad tiraahdaa limit h waxay u socotaa zero one over aadan maxaa waaye layiri qiimaha maxaa waaye xta waa laysiiye waa two plus h minus one over aada waan haystaa waxaan leeyahay two inta badan ardayda wax isku khaldaan waa taas mar walba inaad fahamtay isku day over h mar walba waan sheegay waxaan ku yidhi tan marka tan ffa haddaad aragto waa tanoo la xaliyay horaan usoo sheegay ffx haddaad aragto waa ayadiioo lama yaqaano laakiin meeshii aadii axtii meeshii aa ahayd qiimihii lagu siiya ku bedelanaysaa waa saas okay saan markay tahay marka haddaan hadda ku bedelo sidan markay tahay formula haddaan hadda h zerodii soo qato inta ku bedelo error waaye marka iima soconayso waa nafsis tii hore oo kale tan waa lagu fududeeyey maahana tii horen kasoo shaqaynaynay waa nafsi isku mid waxba isma dhaamaan tan h zero ku socotaa ee u socotaa haddaan inta zero ku bedelo meesha waxaa soo baxaya error natiijo limitki ma ii soo baxayso saas awgeed marka kuma bedelayo laakiin tanaan xalinayaa si aan marka u helo aan u dhiraandhiriyo oo markaas xisaab macquula oo shaqaynaysa ii soo baxda waxaan leeyahay marka limit h waxay u socotaa zero kuwaanan marka waxaan ku samaynayaa labadan waa jajab soo maha maadaama ay jajab yihiin labadan waan isku soo dhirandhirinaya waan kala jaranaya ama isku daraya waxay yihiin calaamadooda markaasaan kor kusoo qoranaya labadan marka seen u samayn karaa labadan maadaama ay jajab yihiin waxaan leeyahay waan iskala jarayaa labadan tanaa waxaan ka jarayaa tan marka natiijadii soo baxdaan inta ku qornay see la sameeyaa ugu fudud waxaa la sameeyaa weliga haddaa aragto kasri san isu dur saaran mathalan 3 over 2 minus 2 over 7 maxaa la sameeyaa tanaa tan lagu dhuftaa calaamadii meeshan ku jirta ee ku taala la qaataa haddana tanaa lagu dhuftaa markaas hoostoodan waxaa la dhigaa labadaana laysku dhiftay waa nidaamka ugu fudud taasaan marka ani hadda ku samaynaya waxaan leeyahay marka hadda tan haddaan tan ku dhufto maxaa soo baxaya haddaan one ku dhufto two maxaa ii soo baxaya two aa soo baxaysa sooma meesha two ii dhig calaamadii aan soo qaadanaya calaamadan waxaan leeyahay marka minus haddaan tan ku dhufto tan halkan ku dhufto one lagu dhuftay tan ilaa saan iyo saan iyo saan aan isugu dhufanaya kadibna hoostooda waxaan ku qoraya labadaana la isku dhufto hadda marka tanaa tan ku dhuftay waxaa ii soo baxday two calaamadii aan soo qaatay waata tanaa waxaan ku dhufanaya tan one markii lagu dhufto kuwaan oo iswato maxaa ii soo baxaya isla kuwaan qowskoodii sidooda ayaga u yaalo qoro waxaa ogaataa calaamadan markaad balaan dhameeyo oo qoro saad u fahanto marka one markaan ku dhufto kuwaan waxaa soo baxayo 2 plus h loo qaybiyaan niri labadaa hoos oo laysku dhuftay kan oo lagu dhuftay kan markii kuwaan laysku dhufto maxaa soo baxay hadda labadan markii tan lagu dhuftay ilaa labadan labadooda way ku dhacaysaa mar kanay ku dhacaysaa marna kanay ku dhacaysaa kan markay ku dhacdo maxaa soo baxayo waxaa ii soo baxayo sorry waxaa ii soo baxayo 4
labada marka h ku dhacdo maxaa soo baxaya calaamadii balaaska soo qaado waa 2h isku garab qormaya kulligood waxa usii qaybsan h. Okay, marka maxaan meeshan sameynaya marka waxaa ogaataa calaamadan minuska oo meesha taallo tanay ku dhacaysaa haddana tanay ku dhacaysaa. Ogow dadka mar walba way isku khaldaan waana lagu fududaadaa sidooda inta loo qortaa waxa loo maleeyaa maya waa tanna way ku dhacaysaa tanna way ku dhacaysaa mar haddiiba calaamad kale ay dhexdooda ku jirtay ay qoys ku jiraan tan iyo tan labadaba way ku dhacaysaa. marka waxaan leeyahay limit h waxay u socotaa 0 2 minus 2 minus h saasaa soo baxaysa kor. tan kale sideeda usoo qoro waa 4 plus 2h kulligoodna maxaa usii qaybsan h. Okay, ugu dambeyntii maxaa iisoo baxaya marka ugu dambeyntii waxaa iisoo baxaya tan iyo tan way isla baxayaan soo ma jeed tan iyo tan way isla baxayaan soo ma tanna minus ay wadataa tanna plus ay wadataa marka way kala jarmayaan labadan way kala jarmayaan meeshii minus h keliya ay soo haraysa. Okay, waxaan leeyahay marka equal limit h waxay u dhowaanaysaa 0 meesha waxaa iisoo haray minus h loo qaybiyey 4 plus 2h waxaa loo sii qaybiyey haddana h. Okay, saan markay iisoo baxda marka waa inta badan ardayda way isku khaldaan waxaan rabaa inaan ku tuso haddii lagu yiraahdo 3 loo qaybiyey 2 waxaa usii qaybsan tahay la yiri labadoodaanoo iswato waxay usii qaybsan tahay 4 iyo markii lagu yiraahdo 3 waxaa loo qaybiyey labadaanoo iswato labay kala yihiin iska ilaali isku mid maaha isku si uma qaybinaysid hadda dad tirahdo isku si aan u qaybinaya khalad weynaad ku dhexaysaa. waxaad ogaataa tan say u qaybsamaysaa tan waa iyadoo la yiri oo kale waaye tan koobaad tan hore tan waa iyadoo la yiri oo kale waaye 3 loo qaybiyey 2 waxay u qaybsan tahay luu yiri 4 tanna waxay la mid tahay iyadoo la yiri 3 ayaa waxay u qaybsan tahay 2/4 3 ayaa waxaa loo qaybiyey 2/4 saasay kala yihiin ha isku khaldin marka ardayda inta badan way isku khaldaan labadan. tan markaas ay noqonaysaa marka tan waxay noqonaysaa tan koowaad haddaan fiirino waxay noqonaysaa waa 3/2 lagu dhuftay 1/4 saasay u qalmay way isgedinaysaa calaamadiina way isbedelaysaa soo ma sida jajabka aad ku soo barat. tanna waxay noqonaysaa 3 lagu dhuftay 4/2 saasay noqonaysaa. markaasaad xalinaysaa oo tan waxaa leedahay labadan hoose isku dhufo waxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa tan kore bal 3 waxaad ku dhufanaysaa waa 3 labadan hoosena haddaa isku dhufatay 8 saasaa soo baxaysa. ama tan maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya 3 iyo 4 ta isku dhaxayo labadan kore ah waxay noqonaysaa 12 loo qaybiyey 2 oo maxaa soo haray 6 labadan marka tan loo qaybiyey tan loo qaybiyey 6 saasaa soo haray. marka saasoo kale waa iska ilaali hadda ani tan aan haystan noocee waay marka tan ani meesha ii taalo tan ma tana mase tan tee waay waxaan arkaa marka h markaan koodii hore sameynayaan ka fiirinaya koodii hore markaan sameynaya maxay ahayd labadan way iswateen soo ma kuwan way iswateen h tan gooniyay ka ahayd marka sheekada waxaa waaye marka waa labadaana isu qaybsan ayaa waxay usii qaybsan tahay tan waa formulahan marka kan waay mar walba xisaabaadkan aad ka shaqaynaysana saas maskaxda ku hay oo inaad sidan oo kale uga shaqayso isku day. Okay, marka aniga maxay noqonaysaa marka maxaa ii soo haraya labadaana isla baxaya tan iyo tan isla baxaya h tan iyo h tan way isla baxaya oo waxay ka dhigan tahay anigoo u qoray sidan minus h loo qaybiyey 4 plus 2h loo qaybiyey h waxaan niri waxay sii noqonaysaa minus h loo qaybiyey 4 plus 2h lagu dhuftay 1/h wakaasa sorry 1/h marka h tan iyo h tan isla baxay waa saasoo kale anoo u qoray. adi markaad qof shaadira tahay oo wixii fahansan tahay waxaad samayn kartaa adoon waxaan dhan wadooyinkan dheer marin waxaad dhihi kartaa labadan maadaama tan iyo tan isu marka hore ayaga isu qaybsamayeen oo loo sii qaybiyo tan labadana isla baxay laakiin haddii la dhihi lahaa labadana isu qaybsanoo tan keliya meesha tan iyo tan islama bixi kari lahayn iska ilaali isku khaldin way isku dhufsami lahaayeen iska ilaali marka. Okay, labadaas markay isla baxaan maxaa limidka ugu dambeeya meesha soo harayo meesha waxaa soo haraysa marka waxaan leeyahay limit
h waxay u dhowaanaysaa 0 kor waxaa ii soo haray soo maaha -1 loo qeybiyey 4 plus 2h hoostan kale waxaa soo baxayo 1 lama qoro marka intaana ii soo baxay hadda limitka markuu intaan kuu soo baxay hadda soo 0da kuma bedeli karta h waad ku bedeli kartaa qiimo rasmi ah kuu soo baxay waxay noqonaysaa marka ugu dambeyntii meeshaan waxaa ka soo baxaya markaan 0dii h ku bedelo meeshaan hal h aan kaliya haystaa h tan 0 ku bedel 0 lagu dhuftay 2 maxaa ii soo baxay waa 0 meesha maxaa soo haraya 1/4 intaas kaliya ii soo haraysa yani haddaan kuusii tafsiiliyo waa 1/4 plus 2 times 0 maxaa ka soo baxaya waa -1/4 kan muxuu yahay marka waa slopekii tangent linekii waa soo saartay okay saan kusoo saaranaya marka tangent linekii waxaa la rabaa equationkii tangent linekii inaan soo saarto saan kusoo saaraya equationkii tangent linekii waxaa kusoo saaraysaa formulihii aan adeegsanaynay oo ahaa y minus haddaad tiraahdo dadka waxay dhahaan sidan oo kale minus y1 equal milekii ama slopekii aad soo saartay lagu dhuftay x minus x1 ama waxaad dhihi kartaa y minus ff waxay la mid tahay milekii ama slopekii aan soo saaray lagu dhuftay x minus a saasaad dhihi kartaa no formalkan inta bad adeegsanayni kaasaa ku qortaa labadaba midkaa rabtaa dhihi kartaa okay ku bedbedel marka y minus ff da maxaa waaye ff waxay la mid tahay 1/2 soo maha saan hadaayi sheegnay ha 1/2 waxay la mid tahay slope tangent linkaan soo saarnayna maxaa waaye -1/4 lagu dhuftay x minus da maxay la mid tahay a waxay la mid tahay x ta qiimaheeda saan soo sheegnay waa tanay la mid tahay soo maha waa tan 2 waxaan leeyahay marka 2 marka sidii oo kale laba shaqo isku qabo oo ah tanna tan kuwan kusii dhudhufo tanna soo wareeji waxaan leeyahay marka y waxay la mid tahay -1/4 x haddii lagu dhufto waa x -1/4 xy tan haddii lagu dhufto -1/4 haddii lagu dhufto 2 maxaa soo baxayo minus iyo minuskan way isku dhacayaan balasa meesha soo baxayso 4tan iyo 2dan way isu qaybsamayaan soo mahdi 2dan haddaan u qaybiyo 2 waa 1 2 intan haddaan u qaybiyana waa 2 waa half soo ma 1/2 marka waxaan leeyahay oo balas waxay noqonaysaa marka balas 1/2 tanaan soo wareejiyey oo gudaha soo geliyey ayadana minus inta ahayd laakiin meesha waxay ku tagaysaa balas waxay noqonaysaa marka balas 1/2 akhiiran maxaa soo baxaya ydii waxaa soo baxaya -1/4 x laba 1/2 haddaan isku daro maxaa soo baxaya half iyo half haddaan isku darto waa plus 1 equationkii tangent linekii lagu daray qiimihiisu muxuu yahay waa kaasa dariiqadaana la rabaa mar walba inaad adeegsato sidan inaadna oga shaqayso mid walba oo lamida haddaad sidan ugu dabaqdo waad ku shaqaynaysaa wax walbana xisaabta ugu muhiimsanna waxay tahay waa inaad fahamsan tahay waxaad samaynayso waxaad xifdisay lama rabo laakiin waa inaad fahamsan tahay shaqada iyo istebiyada iyo sida iyo waxyaabaha lagu kala bedelayo waxay yihiin waxaan kusoo gabagabeynayaa graafkan wuxuu ku tusinayaa waa ujeedaa meeshaan noqdadan noqdo 3 noqdoda meeshaan ku taal mid walba muxuu noqonayaa marka tangent linekii muxuu noqonayaa meeshaan haddaa aragto weligaa haddaa aragto sidana soo u samaysan waxaa ogaataa 0 uu ka wen yahay 0 wixii ka weyn waaye marka haddaa aragto tangent lineki slopekii wuxuu noqonayaa oo slopekii tangent lineki wuxuu ka wen yahay 0 meeshaas hadduu tago qimada meeshaas noqdada haddii ku aado tangent lineki ama slopekii tangent lineki wuxuu noqonayaa 0 hoos markii loo soo dego noqdadan wuxuu noqonayaa waxii minus oo 0 ka yar mar walba maskaxda ku hay graafka markuu saan u samaysan yahay meeshaas horizontal hadduu noqdo mar walba hadduu horizontal noqdo oo saas uu u samaysmo ydii ay saas u samaysanto waxay noqonaysaa marka meeshaas 0 soo baxaysa haddii lagu yiraahdo tangent like slope tangent like kan sheeg adoonan xisaab iyo shaqo kala gelin waxay la mid tahay 0 intana waxaad ogaataa markuu yahay mar walba tirada ku soo baxaysa waa inay plus noqoto inta mar hadduu yahay mar walba tirada ku soo baxaysa waa inay minus noqoto saas waa wax graafka lagu tusinayo darsigan maanta intaasaan ku joojinaynaa walow aad moodeen waxoogaa dheeraaday aad ayaad ugu mahadsantihiin mutaabacayntiina iyo rad ficligiina iyo jawaabihiina
mar walba waxaad ii weydiisaan cursor-ka ama muuska dhaqdhaqaaqase barnaamij walba iyo si walba waa u dayay, waa u raadiyey, ilaa hadda waa xal waa u lahay. Laakiin waxaan isku dayayaa inaan qalinka qaybtan tilmaamaysa aan ku xaliyo. Barnaamijkan softwarekan aan isticmaalayo ayaanan la jaan qaadi karin inuu ku shaqeeyo tilmaamaha cursor-ka inuu la shaqeeyo. Marka saasaa dhibkii keenay. Aad ayaad u mahadsantihiin mar labaad. Waan idinkaga mahad celinayaa. Kana faa'iidaysta, ana kala faa'iidaysano. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.